yaanin maxay aad rabbi weydiisatay inuu kaa aqbalo. ilaahay qur-aanka wuxuu inooga warramayaa maryamo hooyadeed, nebiyullaahi ciise hooyadii maryamadaa hooyadeed waa nebi ciise ayaydii. islaantaasi islaan saalixada bay ahayd. id qaalat imra'atu cimraana rabbi inii nadartu laka ma fii baطni muxarara fataqabal minii inaka anta asamiicu alcaliim bay leedahay. ilaahayow wixii maanta calooshayda ku jira bay leedahay adaan kuu gaar yeelay. ilmihay umuli doonto bay waxay u gaar yeelaysaa inuu ilaahay gurigiisa ka shaqeeyo, shaqo kale inaanay u diri doonin. fataqabal minii bay haddaba leedahay, ilaahu iga aqbal, anugu saasaan yeelayaaye rabbow iga aqbal bay leedahay. waxaa qur-aanka ilaahay inoogaga warramayaa nebiyullaahi ibraahim abulambiyaa. nebiyullaahi ibraahim oo ilaahay baryaya, wuu tukanayaa, ilaahay buu waxaanu weydiisanayaa salaadda mid ooga in rabbi ka dhigo. salaadda mid tukada maaha, mid ooga. oogistu yacni waxa weeyaan salaaddu waxay u baahnayd oo dhan mid u dhammeeya. rabbi ijcalnii muqiima asalaah wa min duriyati rabbana wataqabal ducaa buu leeyahy. ilaahayow waxaad iga yeeshaa mid salaada ooga aniga iyo dhashaydaba, ilaahu ducadaa iga aqbal buu leeyahy. ducadu rabbi raba inuu ka aqbalaa waa maxay? salaadu inay noqoto salaad maqbuul cinda allahi noqonaysa. idan ayuha alaxiba, alambiyaa wasaalixuun hadday sidaa u cabsanayaan oo rabbi weydiisanayaan inuu ka aqbalo, innaga maxaad u malaynaysaa marka? sidaa ogeed waxaa habboon qof walba cabsidaasi inay ku jirto. waxaa habboon qof waliba inuu isku dayo camalkiisa inuu barax tiro, uskaga inuu ka reebo, inuu dhilo. waxaa habboon qof waliba camalkiisaasi inuu baryada ilaahay u badiyo in rabbi ka aqbalo. ilaahay inaad in badan barido in lagaa aqbalo. sidaa ogeed ilaahay qur-aanka qaar buu leeyahy qul anfiquu طawcan aw karha